Assalaamu calaykum. Welcome back to the YouTube channel guys. Waa idin wada salaam dhamaantiin inta muuqaalkan daawanayso. Waxaan rabaa inaan sameeyo trade breakdown. Trade breakdownkaas trade aan ka qaatay Euro USD this week. Shalay ayadoo ahayd Monday. Trade aad u qurux badan ayaan run ahaantii qaatay shalay 8%. Marka maalinka ugu horeysa oo isbuuca haddaa 8% qabatid xataa mararka qaar isbuucaas oo dhan waad iska dhaafi kartaa inaad trade gareysid. But saasay tahay. Haddaa fursad qurux badan hesho sii qaadan kartaa. So maalin aad u qurux badan ay ahayd 8% inaad maalinka ugu horeysa qabatin waa wax aad u qurux badan isbuucaaga dhan kuu sii wanaajinayo. Xataa isbuuc keliya maahan bishaada nin kuu wanaajin kara haddii aad akoon weyn hayso. Sida qof waxaayoo kaleeto akoon $200,000 funded oo kaleeto $16,000 so yeah aad u qurux badan tahay trade noocan oo kaleeto marka aad qabato. So tradekan inta aanan galin ka hor waxaan rabaa inaan u sheego dadka high time frame analysis kiisa waxaan soo dhigay baggeena telegramka sidaad aragtaanba weekendiga ay suuq intuusan furmin ka hor arono sideedii ma mise hadda waxaan sameeyey high time frame analysis. So high time frame analysis kiga markii aan dhameeyey kadib ayaa waxaa dhacday inaan soo dhigo telegramkiga inaan rabo inaan u galo sell. So before waa kana so entryga waa intaan qaadan ka hor but as you guys can see it, let me show you one time. Dadkii ku xiran telegramka ama ku jiro ama hore uga soo faa'iideysan jiray way ka faa'iideysteen. Dadka kaleetana waxaa rajeynayaa inay markooda soo galaan. So hayaga markii la qaato kadib ayaa waxaan dhahnay waxaan sugayaa in shift of structure of 15 minutes ay iga dhacday kadib aan sell usoo raadin doonaa. So sidii aan saadaalinaya marka dhacday waa kana 4 hour time frame markii aan tago. 4 hour time frame markaan tago waxaad arkaysaa markaan soo dhigay telegramkayga suuq inuu marayo halkan kanalkan aan dhacay halkan oon suuq ku helmay last week. So markii uu furmay maalin dhaweyd oo isniin ahayd markii aan tradekii galay waxaad aragtaa waxaa dhacay 8% straight to the TP. Let's go to the lower time frame. Marka sababtaan u qaatay oo high time frame kaan isla wada naqaana waxaa la joogaa 4 hour time frame supply which broke structure kaasaa la midkeed gelay and then waxaa dhacay marka leeto break of structure kaleeto. So break of structure markuu dhacay suuqa intuusan break of structure ka sameynin ka hor ayuu wuxuu sameeyey build up of liquidity. So highskan oo dhan waa liquidity. Highgan liquidity ayaa yaalo, highgan liquidity ayaa highgan liquidity oo leeyahay, highgan sidoo kaleeto. So highskan oo dhan build up of liquidity waa trend and liquidity xitaa waa la dhihi karaa. In la qaato ayaa waxaa sababa marka in la qaato liquiditygan oo dhan newskii soo baxayay last Friday ayaa liquidity wixii dhan qaatay suuqan halkaas oo noogu xirmay. Suuqa markii halkaas uu ku xirmay waxaa dhacday marka inaan aaday lower time frame. So mar walba high la qaato waa ogtihiin lower time frame kiigan aadaa liquidity markuu dhaco waxaan sugaa change of direction. Haddii suuqa ku socdo lower time frame ka uptrend waxaan sugaa ilaa downtrend oo ka noqdo asagana ama change of character uu sameeyo si ay isku waafaqaan labada time frame 4 hour iyo 15 minutes. Kadib waxaan sugaa marka liquidity wixii kor ka dhaco kale taa idin ka sugaa liquidity swap intana ka dhacay because of this high ali swap gareeyay and then waxaa dhacday in change of character lagu sameeyo. So intaan change of character lagu sameeyo kor suuqa wuxuu sameeyey rally drop base drop which broke structure. So baseka ayaa wuxuu noqonaya marka liquidity haddii lacala liquidity oosan hoos ka abuurmin lugtan keligeed ay noqoto dropkan basekan ayaa wuxuu noqonaya liquidity. So waxaan u qaadan lahayn sidaan oo kaleeto inaan dhahno highgas ayaan ka qaadanaya tradeka supplygeena waa kana but ma aysan dhicin suuqa wuxuu noo sameeyey high kaleeto. So highgan waxaan dhahnay inducement waa highgan inducement markaan dhahnay marka waxaan sugnay ilaa suuqa ka sameeyey mitigationka supplygasna entry ka qaatay stop loss above aan ka dhigay. So beautiful trade oo ahaa. So this is the before intaan trade ka qaadan ka hor. You guys can see it was live yesterday Monday ahead. You guys can see it August 25 and finally the trade hit the TP very beautifully and very momentumly. So guys waxaan rajeynayaa inaad waxaan ka faa'iideyn tradekan aan sameeyey trade breakdown. Inkastoo YouTubekan aan inta badan soo dhigay aniga trade breakdownska hadda kadib waxaan isku dayaa insha Allah inaan sameeyo muuqaalo wax un looga faa'iidayo sida aad ku fahmaysaan structure-ka oo kaleeto liquidity-ga sidaan trade u qaato iyo anoo gudaha usii galayo waxyaaba aad u fara badan but waxaa waaye guys intaan aan kusoo gabagabeynaya muuqaalka inuu sii dheeraado mar walba. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.